فنان أبوان يمستجيست عانه الصومالية أيوها أحمد إسماعيل حسين أو لو يقاني حديدي wuxuu ku geeriyooday magaalada London ee dalka UK halkaasi oo maalmihii la soo dhaafay uu ku xanuunsanayay xudaydi oo loo yaqaanay boqorka cuudka ayaa waxa ku dhacay cudurka coronavirus-ka muddo toddobaadyo ah ayuu isbitaal ugu jiray gudaha magaalada London ee caasimadda dalka UK xudaydi ayaa noqonaya qofkii saddexaad oo caan ah oo Soomaali ah oo u geeriyooday coronavirus uguna geeriyooday gudaha magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska kadib Cabdulqaadir Maxamed Faarax Biriq oo ahaa ciyaartoy hore iyo tababaray ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde Allah u naxariistay Axmed Xudaydi oo ku geeriyooday da'da 92 sano jir ayaa waxa uu ahaa rugcadda lagu qadariyo heesaha cuudka amaba kuwa kabanka oo muddo ka badan 70 sano uu ku dhex jiray wuxuuna ku dhashay magaalada Burco sidoo kale Axmed Xudaydi ayaa qaaday heeso kala duwan waxaana kamid ah heesta uurkii hooyo iyo kuwa kale oo aad u caan baxay Soomaalidana ay aad u xiiseeyaan dabalkiyadoogay kilaga abu basiyabaydimu ilawada dabalkiyadoogay kilaga abu basiyabaydimu sidanku ilawa mahan karayse sidanku ilawa mahan karayse dahaynukay kodoksadeno adnahaysukay aladini uruya sida lagu hayo taariikhda xudaydi isagoo 14 sano jir ah ayaa aabihii waxa uu u kaxeeyay xaflad ka dhacaysay magaalada Cadan ee dalka Yemen halkaasi oo uu kula kulmay nin Carab ah oo ciyaaraya cuudka kana jeclaaday aabihii ayuu ka codsaday inuu u iibiyo waxa uuna kadib sida loo ciyaaro ka bartay Cabdullaahi Qorshe wixii markaasi ka dambeeyayna waxa uu ahaa mid garaac ah isla markaasina si weyn u xiiseeya dhinaca kabanka